xaaska xildhibaankii Britain Sir David Amis ayaa booqatay kiniisadii lagu tooreeyay laguna dilay Jimcihii markii uu la kulmayay dadkiisa. Waxa uu heliyay xubno qoyskeeda ah Julia Amis oo 15 daqiiqo joogtay waxay eegaysay qaar ka mid ah ubixii la soo dhigay halkaasi. Xildhibaanada UK ayaa iyana galabta kulan gaar ah uga soo laabtay xarunta baarlamaanka ee Westminster si ay ugu tacsiyayaan. Tacsi gaar ah ayaana loogu qaban doonaa kiniisadda St Margaret. ilaa iyo markii la dilay Sir David dhowr xildhibaan waxay ka hadleen xadgudubyada iyo hanjabaadaha ay la kulmaan. xogayaha arrimaha dibadda ee waddankan UK ayaa ku dhawaaqday in dib u eegis lagu sameeyo ammaanka xildhibaanada. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya. baarlamaanka UK ayaa la isugu soo noqday saaka iyadoo xildhibaanadu ay xusayaan Sir David Amis. Ma ahan oo kaliya inay tani tahay dembi iyo naxdin, balse waxa kaloo ay tahay weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda. In badan oo halkan fadhida waxa ay dareemayaan cabsi ay u nugul yihiin. Marka ma la odhan karaya qaar ka mid ah xildhibaanadu waxa iskaga baxayaanba siyaasadda? Yes, I do question whether waan isweydiinayaa taasi aniga keliyana ma ahan waa wax taabanaya shaqaalahayga iyo sidoo kale qoyskayga laakiin waa waxaan aad u jeclahay inaan bedelo dunida qof iga joojin karana ma jirto baan kastoo aad la hadasho iminka waxa uu isweydiinayaa su'aal ku saabsan amnigooda gaar ahaanna marka ay ka fog yihiin ammaanka baarlamaanka ee xaruntani. markii uu soo baxay warka David markaas waan shir aan dhameeyay aad ayaan u argagaxay anigoo ka fakariyay inuu hayay shaqo dadweyne sida dhammaanteen oo kale sidaasna ayay noloshiisii ku dhammaatay. waa wax laga naxo maxaa yeelay ma ogid inaad u baahan tahay ilaalo marka aad joogto xarunta ama aad dhex lugeynayso magaalada amaba aad dukaamaysanayso xitaa haddii aadan samaynayn shaqada xildhibaannimada tani way kugu dhici kartaa. saakana qoyska Sir David Amis ayaa halkan u yimid si ay u arkaan ubaxyo badan oo xusuusa oo loo dhigay iyadoo saaxiibadiisa Westminsterna ay isweydiinayaan maxaa isbedeli karaya iminka sababtoo ah xildhibaanadu waxay qiimeynayaan inay si foolka fool ah ula sheekaystaan dadka iyaga codka siiyey. waxaynu u baahannahay inaan jawaab bixinno waxaynu u baahannahay inaan hubinno inaan samaynayno wax walba oo aynu awoodno waxaan u baahannahay inaan hubinno inaan samayno taxadar ku habboon wax kasta. 5 sano ayuunbaa laga joogaa markii ubaxyo halkan xarunta baarlamaanka lagu xusay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada xisbiga Labourka Joe Cox oo la dilay. aad ayaan uga naxay taasi inay dhacday laakiin waxa ay la tahay in siyaabo badan aanay ahayn waxa lala yaabo waxaan u malaynayaa in si uun qaar hadalladeena siyaasadeed ay u soo hagaagayeen marka dib loo eego 2016 ee lagu jiray ololaha Brexitka haddii aad dib u eegno muddadaas. xuskii galabta ka dhacay Westminster midnimada xildhibaanadu si cad ayay u muuqatay. nin 25 jir ayaa wali su'aalo laga weydiinaya dilka Sir David Amis waa kan wariyaha ammaanka BBC-da Frank Gardner oo inoo sharaxa. waa British halkan ku dhashay kuna barbaaray oo 25 jir ah wuxuu dhashay 1996 wuxuu ku soo barbaaray Croydon oo London ah waalidkii waxa Soomaaliya ay ka yimaadeen 90meeyadii aabihii waxa uu la taliyo u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taasina waa sababta dadka qaar ay u eegayaan xiriir suurtagal oo Soomaaliya laakiin ilaa hadda dadka Whitehall ee aan la hadlay waxa naloo sheegay in aan wax xiriir la lahayn kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. su'aalo ayaa la weydiinayaa booliiskuna ilaa Jimcaha ayay haystaan dib ayaa loo xiray iyadoo la cugsanayo qodobka 41 ee xeerka argagixisada waxay baarayaan line kasta oo suurtagal ah waxay eegayaan cadeymo telefonkiisa. booliisku waxay heleen tuuridii lagu dilay Sir David Amis. ninka laga shakisan yahay iskuma dayin inuu ka cararo meesha dad goobjoogayaal waxa ay sheegeen inaanu ku dhawaaqin takbiirta Allahu Akbar oo ay ku qayliyaan dadka qaarkii marka ay fulinayaan weerarada loo yaqaan jihaadka taasi lama maqlin qof walba il gaar ayuu arrintaasi ku eegayaa. aabihii waxa su'aalo weydiiyay booliska argagixisada la dagaalama telefonkiisana isna waa laga qaaday si baaritaan loogu sameeyo.